بسم الله الرحمن الرحيم داوديال kusoo dhawaada waxaynu hawada ka maqnayn muddo dhan 2 week iyo badh daawadayaal maanta barnaamijkeenu waa ka duwan yahay barnaamijyadii kale maxaa uu ku saabsan yahay barnaamijkeenu inta aanan u guda galin barnaamijkeena fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe noo saar gambaleelkana furo like iyo share iyo commentino waa dhankaaga wixii faahfaahla ama tala ama tusaalooyin xagga hoose loogu reeb aad baad u mahadsantahay noo bilaabo mawduuceena mawduuca waxaa daadihin doonaa mid ka mid ah TEAMXIKMAAWI mawduucu maanta waxa uu ku qotomaa ama ku qoto dheer yahay iwad sheekada halkee ayay maraysaa si halku maraya labada fanaan ee caanka geeyga Soomaalida ka ah iyo geeyga kale ee la kala yiraahdo Kiin Jamac iyo Xalimo Hobaad ayaa dhawaan waxay ku afurteen ama ay ku dhawaaqeen inay show ku qaban doonaan magaalada Hargeysa habdalal farcelinta laga soo gudbiyay ama laga soo sheegay ugana yimaadeen dhanka culimada ayaa waxay tahay in showgaasi u baaqday labadan fanaan ee aad ka u firfircoon qoobka ciyaarkana aad ka u yaqaana ayaa waxay damceen in ay show ku qabsadaan Hargeysa halkaasi oo ay fanaaniintu ugu diideen culimadu aan idhaahdo ay ugu diideen inay sameeyaan wax show ah sababtoo ah labadan fanaan oo ay ku eedeeyeen astur la'aan iyo inay yihiin qaar hidihi iyo dhaqanka ka tagay labadan fanaan ayaa wax jawaab ah wali soo celin laakiin culimadu waxay go'aamisay in showgaasi uu baaqan doono kaasi oo la doonayay in lagu dhigo magaalada Hargeysa isla bishan gudaheeda wararka iyo warar kale waan soo gudbin doonaa daawada haddii aad nagu cusub tahay xogtan dhameystiran aad ka qayb qaadatay awgeed subscribe iyo like iyo share iyo comment waa dhankaaga daadihiya barnaamijku waa anigoo ah MUUSE maxamed inta ku kulmi doono wassalaamu calaykum aad baan mahadsantihiin TEAMXIKMAAWI